السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. marka hore waxaan salaamayaa xubnaha kala duwan ee Nuur Library iyo akhyaarta kala duwan ee ku xiran bahda akhriska iyo qoraalka ee library-ga. sidoo kale waxaan halkan salaanigana runtii uga dirayaa soo dhaweynayaa gudoomiyaha Akaademiyadda Nabadda Maxamed Faarax Xirsi. xaruntan waxa la aasaasay aakhirka sanadkii 2016 bishii 8 Agost ayaa la furay iyadoo xilligaasi ay fureen koox dhalinyaro ah oo isugu jira hablo iyo inama kala duwan oo xataa aan xaafadan oo kaliya ku koobnayn laakiin xataa qaybo kale oo magaalada degan laakiin baahida iyo muhiimadda ugu weyn siiyay xaafadan population-keedu iyo da'yarteedu aad ka farbadahay xilligaasi olole ayaa lagu furay aragti markaa dhalinyarada qaar dhex martay ololahaasi wuxuu ahaa halku dhigiisu ugu deeq buug jiilkaaga saddex taargada ama saddex higsi oo kala sareeya ayuu lahaa higsiga koowaad wuxuu ahaa in la helo buugaag marka koowaad oo dadka dhalinyarada buugaagta dhex taala ee ay ka maarmi karaan la isku keeno 500 books iyo wax ka badan in la isku keeni karo tii way suura gashay waana la isku keenay sidoo qorshuhu ahaa 3 bilood ee u horeeyay maadaama ololuhu baraha bulshada ka socday higsiga halka looga socday wuxuu ahaa sanad iyo bar kadib 3 bilood in dabadeed haddana lagu gaaro 1500 buug ilaa 2000 buug iyo agabka ay xarun library ama meel dadka lagala hadlo iyo xarun library la isku helo 2018 aakhirkiisa ayaa arinta iyadana lagu guuleystay oo ay la buugaagtu gaareen marka 2000 buug wax ku dhow tigsiga saddexaadina wuxuu ahaa in xaruntani ay soo saarto jiilal cusub sidoo kalena ay yeelato nooc kasta oo buugaagta aqoonta kala duwan ay ku qoran tahay iyo qalab kasta oo u baahan tahay walaw aan imika gaarin higsigii saddexaad ama aanay dhammaystirin haddana majority-geedii intii badnayd waxaan odhan karaynaa way ka fargaraysay ama way gaadhay Akaademiyadda Nabadda runtii Ilaahay ka abaalmariyo halkan buugaagta taala waa buugaagtii cilmiga ahaa weeyaan waa physics-kii biology-gii sidoo kale classroom assessment for teachers oo had waxyaabaha lagu qiimeynayo يعني maxaan ku dhahday classroom-ka macallimiinta buugaagadu qiimo badan bay runtii ay maantiina la wadaageen marka inaynu aad uga faa'iideysano cilmiga dhuuxno aadna imika social media ina saameeyo dhibaatay nagu hayo mushkilad weyn buu hadda nagu haya oo weyn saameeyay oo si dadku bariga hore wax akhri jireen uma akhriyaan marka in buugaagtan cilmiga runtii aynu dhuuxno oo aynu ka faa'iideysano da'yartan aynu ku soo xidho ayaan aad runtii u jeclaan lahaa waxaan ku gabagabeyn lahaa inaan u mahadnaqo runtii gudoomiyaha runtii iyo akaademiyadiisa iyo teamka la socda saxaafadda wallahi ilaahay hayda ka abaal mariyo waxa weeyaan waxaad qabateen runtii wax la isugu deeqo wixii ugu wanaagsanaa ayada runtii ugu deeqdeen waxaan kaloo jeclaan lahaa inaan u mahadnaqo da'yarta halkan ka soo qayb gashay iyaguna markaa faraha badan leh aad baad mahadsantihiin waan isku soo noqon doonaa thank you very much وده بوقت هالكن تعالى وقدم كجوه رئيسه shelf space library online library جا بوقت بدن بتعالى لكن سب بوقت هسي هو more technical وحوي public policy يو مارته history يو politics يو peace building يو حياة بدن بي أي لا تحلق له كون عدمي آخر سنتين كان كارد نيرتها ومعلم معها كمان حفيز كيبي مع عبد الرحمن أي library جي شيء مركز library جي بنجي يحكوا وربوقت عدمي ما خستنا جه oo dadka halkan imaada field kale akhristaan oo halkan yaalay buugaagtan aynu ugu deeqno library-ga waanu siin oo dhalinyarta soo kacaysa idinku ka mid tihiin ha ka faa'iideysato haddii secondary-da qaar ku jiraan secondary-da mala wad ka weyntiin baan maalinaya intiina badan ka fadhidaa waxa ku jira laakiin accounting-kii financial accounting-kii baa ku jira qaar buugaag jaamacad baa ku jira haddii qaar science-ka dhiganaya buugaag physics oo science-ka baa ku jira waa laga faa'iideysan karaya aqoontu ummadaha dunida waxa kala hormariya waa aqoonta sidii sheekhu halkan ka akhriyay aayadihii quraanka ahaa علم الإنسان ما لم يعلم بالله
bini'aadankii waxaanu barnay waxaanay garanay qofka bini'aadankii waxyaabaha uu abuuran yahay marka laga yimaado cibaadada Ilaahay waa inuu naftiisa iyo dadkiisa iyo qoyskiisa uu damaanad qaadi karaa oo uu maaragtay waxyaabihii loo abuuray ee ahayd inuu aakhirana ka faa'iideysto adduunkana uu wax ka dhigto inuu markaa ku camal falo marka aqoontu waa saldhigga iyo asaaska nolosha bini'aadanka weey Ilaahay ma inta badan ka hadlay miyay simeeyeen buu yiri kuwa wax bartay iyo kuwa wax baran marka ma sina jawaabtu waxa weey ma sina waxa ugu yar ee aqoontu ay ku keenaysaa waxa weeyaan inaad kala garato waxa la yiraahdo sax iyo khaladka maxaa khaldan maxaa saxsan iyo inaad bulshadii aad wax ku soo kordhiso inagu dhaqankeena Soomaaliga gaar ahaan dhaqankeena reer Soomaaliland dadka wax bartay ee aqoonta leh ee khibradda leh ma aha dadka inta badan challenge ka wehela in dadka hogaamiya oo hogaamin noqda dadka inta challenge ka wehesha ee ina hor fadhida ee siyaasadda gasha shaqo la qabto ta ugu fudud waa siyaasadda ta ugu laga taajire ee lacagta laga sameeyana waa iyada shaqo la qabto waxaanay ku tusaysaa ummadaha kale laakiinse siyaasaddu waa hab dhaqanka nolosha bulshada siyaasadda waxa gala oo inta badan ku soo baxa oo xisbiya sameeysta oo ummadda xukuma oo ummadda jihaw jaha waa dadkeeda aragtida leh ee aqoontana maaragtay leh laakiin inaga cagsigeena waxa weeyaan kuwa aqoonta leh maqaaxiyaha ka canaantaan ay ka sheekeeyaan kii siyaasadda galay aan aqoonta lahayn ilaahay kaas muxuu garanaya waadigu maxaad u gali weeyday hadaad wax garanaysaa wax u bedeli weeyday marka taasina waa takeenaysa inaan ummaddu aan halkay maanta marayso maalin bad talaabaynu qaadnaa oo horumar baa la sameeynaya laakiin se haddana horumarkii la doonayay ma jiro imika hadaad eegto riboodyada Soomaaliland laga qoro ee dunida caalamka ka qorto waxa kamid ah ribood banka adduunka meesha la yiraahdo World Bank uu ka qoray oo ku tilmaamay in aynu nahay dalka saddexaad ee dunida ugu fakhrisan dunidu waxay ku tartantaa horumarka waxa la yiraahdaa dunida horumartay developed world baa la yiraahdaa iyo dunida soo horumaraysa iyo dunida under developed ee aan horumarin kuwa aan horumarin ee dhaadhacay ma garanaysa liiska xagga dama ka haysta kaalinta saddexaad buu ku jiraa waxay ku tusaysaa halkay ummaddeenu marayso shaqo la'aanteenu aad u badan boqolkiiba 78 baa lagu qiyaasaa 8 baa lagu qiyaasaa dhalinyaro badan waliba oo bilaacama dhaqaaluhu iyo horumarka dhaqaalaha waxa keena aragtiyooyin siyaasadeed baa keena siyaasadda iyo dhaqaaluhu ma kala baxaan aragti siyaasadeed baa keenaysa aragti dhaqaale marka waa ta loo baahan yahay ummaddu inay maaragtay dadkeeda wax bartay aqoonta leh idinku aad ka mid tihiin iyo kuwa kale soo socda iyo kuwa imka joogaba inaad maaragtay in laga gaarso marka aqoontu waa muhiim hays oran hadaba أنا waxaan xasuustaa barihii aan wax bareynay dalku baaba ay burburka ku jiray maaragtay dagaaladii laga soo noqday imika library ay ku haysataan kuraas baad ku fadhidaan leer bay idin baxaya anagu waxaan ka soo bilownay geed hoosti 1991 markii dalka lagu soo noqday wiilaan ka bilownay moogta marka wax laga bilaabay geed hoosti laga bilaabay markii dambe waa laga gudbo daasada lagu fadhiistay boos barkii hore dhagaxmeel lagu fadhiisan jiray daasadu ma jirin oo ciidamada caalamiga ma cabbi jirin moogta marka waxay noqotay daasadihii markii dalkii la keenay 94 95 ayaa daasada la helay kuraas fiican bay haayeen daasadihii baa la helay daasada lagu fadhiisan jiray nin kasta waxa badu meesha ka soo helay nasiibkii markii dambe ay kuraas loo gudbay labadii kun baa loogu horeysay maalin kursi lagu fadhiisto marka tadawurka ayay ku tusaysaa moogtay ummadan ay soo martay marka maalinba meel bay joognay laakiin se halkeen joogno ummadan waxa ka kaxayn kara maxay aqoon ba ka kaxayn karta marka aqoontu wada ka daalina qodobka labaad ha ka niyad jabinina because waxa laga yaabaa in duruufaha shakhsiga kugu xeeran inaad tiraahdo aniyo maxaa de maaragtay shaqalaanta dalka ka jirta aad aragto duruufaha baasan aad aragto fakhriga aad aragto mushkilaadka iyo busaaradda iyo maaragtay mushkilaadka dinagu xeeran aad aragto inta waxa laga yaabaa qofkii inuu wax akhristo iyo inuu wax soo kordhiyo iyo inuu maaragtay dadaalo inuu yiraahdo war waxna waxba qaban maysa bilaad kadibna waxay u baadhayaan wadooyin kale mid xamaal u beero oo iska xamaasho oo noloshiisa xamaal ku dhamaysta mid maartay mukhadaraad iyo mushkilaad iyo balwadu beera oo nolosha ka dhaca mid tahriiba oo meel dheer mara oo aakhirka hadii Ilaahay badbaadiyo meeshu doonay taga hadii kala ku dhinta kadibna wadooyin iyo wadiiqooyin kale oo mid kastaaba ay kugu hogaaminayso halaag ayaad maraysaa marka waxaan leeyahay ka niyad jabina qofka bilaadankana adiga labada ninka inay soo fadhiya
iyo labada hablood soo fadhiya midna ilaahay arsaaqdiisa mid kastaba uu maxbuusi marka ha ku go'aan qaadan oo ha oran waar kuwii ka horeeyay ba jaamacad ka baxayno maaragtay way iska fadhiyaan oo shaqo ma hayaan oo bekaaya adigu isku arsaaq ma tiidin marka adigu waa inaad tii ilaahay ku qori raasataa oo aanad niyad jabin marka koow iska ilaaliya niyad jab because nolosha ku nool niyad jabka ku badan oo duruufaha keenaya laakiin si duruufaha waa qayb kamid ah nolosha marka waa inaad ka bixi kartaan oo maaragtay hawsha wadi kartaan